waxaa kumanaan sannadood la isweydiinaya oo aan lagu sameyn wax daraasada sababta kalluunkana uu uga imanaya badda isagoo imanaya halkani webiga isla mar ahaantaasina dhimanaya wax yar kadib balse quudinaya kumanaan ka mid ah galeedhka. waxay isugu yimaada kumanaan galeedh ah kuwaas oo ka imanaya dhammaan daafaha caalamka. waa meel cajaa'ib oo soo jeedata dalxiisayaasha caalamka laguna arko galeedhka ugu badan dunida. waa duleedka magaalada qadiimiga ee Alaska. waxa uu ka soo baxayaa kalluunku biyaha dhanaan ee badda waxaanu imanayaa biyahan macaan ee webiga waana sababta uu dhimanayo. waxaana halkani hilbaha kalluunka cuna inta badan kuwani galeedhka ay xoog badan. waa qaar leh af iyo cidiyaad u xoog badan inta badan aan ku tiirsanayn kalluunkan marka laga reebo sanadkii hal mar. xayawaanadan loo yaqaan galeedhku waa xayawaano cajaa'ib ah marka laga yimaado xoog badnaanta afkooda iyo cidiyahooda. waxay sidoo kale adkaysi badan u leeyihiin gaajada waxaanay calooshoodu leedahay waxa loo yaqaan goorajka taasoo cuntada meel gaara ku kaydin karta isla mar ahaantaasina waxay qadi karaan muddo lagu qiyaasay 7 ilaa 2 toddobaad. waxay ka mid yihiin xayawaanada had iyo jeer jecel inay wadaagaan wax balse midka waxalay uma ogola inta badan. waxaa jira dabaylo waana waqtiga loo yaqaan dayrta. waxaana ku xigi doona jiilaal oo aad u rafaad badan. waxa uu galeedhku u muuqdaa haatan mid door biday inuu dhex lugayo webiga isla mar ahaantaasina ka kalluumaysto. waxay weli helayaan khayraadka kalluunka balse midkani ma aha mid joogta oo waqti kooban ayuunbaa la hela. balse waqtiyada biyaha furan ay inta badan isu bedelaan baraf waa waqtigu door bidayo. waxay sidoo kale indhaha ku hayaan buulashooda oo sanadkii hore barafku waxyeeleeyay. inta badan midka laba ee galeedhku waa ka xuduuda ilaalinaya isla mar ahaantaasina buulkiisa dib u dhisaya una qurxinaya dhalaha sanadkani uu qorsheeyay inuu ku dhalo mar kale. gaar ahaan buulkani waa mid ku yaala goob istiraatiiji ah midaas oo aad ugu dhow meelaha cuntada badan. waxaa goobtani u soo haajira qaar badan oo galeedha isla mar ahaantaasina waxay helaan xuduudo iyagu leeyihiin iyagoo ka qabsanaya qaar hore. marka uu dhammaystiro qabyada buulka midkan laba ee galeedhku waxa uu ilaashan doonaa u duulayaa xuduudiisa. balse hadda galeedh kale ayaa u soo weydaartay buulkiisii. waa mid dhadig. waxaana waajahay midkii laba midanina waxay u muuqataa inay labadoodaba u tahay jaanis ay isku heleen. midka caafimaadka qaba ee galeedhku saacaddii wuxuu duuli karaa 40 mayl balse markay hawada sare quusayaan 120 bay duulaan.
way kala duwan yihiin dhammaan makhluuqaadka koonkani ku nool mid la mid ahna ma jiro. Markay kadib saacado badan duulayaan kuna waajahnayaan daruuraha, waxay ku soo noqdeen buulka shaqana ka qabya. Waxay ku soo noqdeen goobtay ugu tala galeen jiilalka dhali doonaan, kuwaas oo u baahan in goobta laga qurxiyo ammaankeedana aad looga sugo. Kadib markay ku soo noqdeen buulka, waxay qurxinayaan oo cabaar ka shaqaynayaan buulka intaan is aroosin ka hor. Waxaa markasta xoog badan midka lab, waa midka sokeeya xooga badan ee afka dhuuban leh, afkiisuna soo qalooco halka midda dhadig ay tahay midda shishe ee awoodda yar. middan dhadig ay haatan waxay jirtaa 4 sanadood, waana markeedii ugu horeysay ee dhalayso ugxanta, kuwaas oo haatan iyaga u sii gogol xaadhayso. waxaanay rajeynayaan haatan inay dhalahoodu raacaan. waxaa soo galaya jilaal, dhammaan webiguna waxaa isku bedelay baraf. waxay makhluuqaadka qaar kala kulmayaan dhibaato midkani barafka. waxaana haatan uu bilow ah nolosha barafka iyo qabowga badan leh ee jilaalka. waxaana barafka iyo qabowga jilaalka u dheer mararka qaar duufaanaha iyo dabaylaha geedaha ruxaya. gabaldhaca wax yar ka hor ayay dhashay beedkeedii ugu horeeyay. waxa uu beedku ku qaboobayaa ama ku barafoobayaa minidayar gudahood, waxaanu aabuhu ku dadaalayaa inuu isagu baalashiisa ugu dugsiyo. waxa uu ka marinayaa baalasha hareeraha, wuxuu ku soo rogayaa cawska, waxaanu ka hortagayaa qabowga iyo barafka midkaas oo dhalihiisii kala hore salfaday. waxaanu ku dadaalayaa sanadkan inaanay dhalihiisu mar kale jilaalku ka waxyeelayn.